weligaa ha ka dabacararin qofkaa tagay. waxaan halkani kugu soo gudbin doonaa 3 sabab oo aadan u dabacarari karin qofkaa tagay. soo dhow walaal, haddii aad ku cusub tahay kanaalka subscribe saar si muuqaalada mustaqbalkan soo gelin doona ay kuu soo gaaraan. muuqaalka la gare si dad badan u gaaro na caawiyo, waad mahadsan tahay. sababta koowaad aadan u dabacarari karin qofkaa tagay. qofka kuma jecla ee ka joog. qofka ku jecel marna kaama tago qalid waliba waa samayso, marna kuma macsalaamaynayo, marna kaama ahaan karo, marna ma doonayo inuu kaa fogaado. balse qofka go'aansada inuu noloshaada ka baxo waa qof aanan ku jeclayn. inaad daba ordid waad isku qasabtid waa qayb ka mid ah daciifnimada xaggaaga ahaatay. qofku arkaya oo kaa tegay sidee ayaad iskugu dabadhejin kartaa? sidee ugu dabacalaacali kartaa? sidee weli ugu malayn kartaa inuu ku jecel yahay? calaacalka iyo dabacararka bini'aadamka wuu ku kibraa, wayna sii fogaysaa. ka joog inaad dabacarartid qofkaa tagay. reasonka labaad, dareenka jacayl oo qofkani kuu hayay u dhammaaday. ma jirto wax sidiis ahaanayo, dareenada way isbeddel badan yihiin. waxaa laga yaabaa in sidii shalay xaggiisa aad ugu weyneyd maanta aadan ugu weyneyn. dareenkii jacayl uu kuu hayayna uu dhintay ama uu dhammaaday. jacaylku wuu dhashaa oo dhintaa sida geedkaba uu u abuurmo. haddii biyaha lagu waraabiyo laga joojiyana uu dhinto. waxaa jirta waxaad samaysay oo keenaysa in qofkani jacaylka uu kuu hayay dhammaado ama dhinto. waxa sabab u ah muuqaal kale aan kaga soo hadli doonaa. reasonka saddexaad, qof kale oo kaa wanaagsan ayuu helay. adiga ma tihid qof xun mana xumaynin qofka, laakiin waxa uu helay qof kaa wanaagsan adiga. waxaan ula jeedaa waxa uu helay qof agtiisa uu ka helaya wax kasta oo agtaada uu ka waayey. wax kasta oo aad adiga ka gaabisay amaadan u arkaynin wax muhiim ah. qof kasta waxa uu jecel yahay qof daneeya oo daryeela, maalin kastana wax cusub la imaada, erayo iyo ficil jacayl cusubna sameeya. laakiin haddii shalay hadallada aad ku dhaysay maanta aad ku leedahay, qofkani boorin ayuu ka qaadayaa, uuna kaa xiisa dhacayaa. haddii shalay adiga mashquulkaaga uu badnaa, maanta waxa uu helay qof aanan ka mashquulaynin, xilli kasta u baahdana uu heli karo. haddii la kulanka iyo is-aragtida aad ka cagajiidi jirtay ama aad ka diidi jirtay, maanta waxa uu helay qof xiiseeyay araggiisa iyo la kulankiisa. wax kastoo adiga xaggaaga aad ka cagajiidi jirtay ayuu qofkani agtiisa ka helayaa. hadda waxaan u malaynayaa inaad fahamtay. ma laga yaabaa in sababta lagaga tegay aad adiga leedahay? aan ku ogaado xagga hoose ee commentiga. waa mahadsan tahay.